waxaa marti noogu ahaa Caydaruus Axmed Cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka soo jeeda. Barnaamijkan ayaynu caawa ku qaadaa dhigana isbedelada waaweyn ee dalka Itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayay iyo saameynta ay ku yeelanayaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Hadda ayuu khadka ku soo biiray Caydaruus. Caydaruus ku soo dhawow Somaliland Live Media waxaan rajeynayaa inaad maqlayso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل مدة نوتي كجري. دوديشنا ayaan doonayaa inaan barnaamijka u gudmaro intaan wali hadda nagu soo biirayay intaan nagu soo biiri doonaba barnaamijka nooca waxa uu ku saabsanaan doonaa isbedelada waaweyn ee muddooyinkii ugu dambeeyay dalka Itoobiya ka dhacayay kuwaas oo runtii ah waxyaabo aan xisaabaha marka la eego halka xaaladda Itoobiya iyo siyaasadahan sidoo han jiray aan hadda ahayn wax xar loo saadalinayay dalka Itoobiya muddo badan ka mid ah dalalka siyaasadahan aad u xulxulan sidoo kalena bulsho ahaan iyo ka qayb qaadashada amba cabirka rayiga xorti uusan ka taabageli karin waxa hadda u muuqataa in dalkaas uu qaaday jaha cusub waxaan weydiinaynaa haddaba khabiirka caawa barnaamijkana la falaqaynaya waxay uga dhigan tahay jahada cusub ee Itoobiya ay qaaday dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyo dadka deegaanadaas ku nool oo iyagu ka mid ah bulshooyinka Itoobiya ku nool ee muddooyin fara badan u dagaalamayay inay helaan xorriyad iyo madax bannaani ay mar uun kaga hadalkooda iyo codkooda ku muuqdo barnaamijka waxaan sidoo kale ku falaqayn doonaa shirar iyo isbedelka mustaqbalka dhow sida uu noqon doono xaaladda dowlad deegaanka Itoobiya waxaan doonayaa marka hore inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka Caydaruus Axmed Cabdi waxaan doonayaa dhageystayaasha inaan xasuusiyo in Caydaruus muddo dheer hadda ka hor uu qayb barnaamijyo kuwan oo kale ka duwan nagala qayb qaatay isagoo waqtiyada aysan suuragal ahayn inaan falaqayno waxyaabaha caawan falaqaynayna Caydaruus soo dhawow mar labaad waxaan doonayaa inaan marka hore barnaamijkeena ku bilowno bal inaad guud ahaan noo guud marto waxa uu salka ku hayo amba warbixin kooban oo ku saabsan isbedelada waaweyn ee waqtiga ugu dambeeyay Itoobiya in ka dhacay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أدنى قصة عمي وري أديجيو وربعين هذا Somaliland Live Media وهرين سيدا كل واحد لما علني ورياش التردير أنا بقول بعين التردير Somaliland كهول قشة هذه الشيء كله رتاء الرماها كلها كائنة حقائق شراك السوق البيان أم بس اللي حد ما يوصل الرمان ونقول له إذا وهرين برنامجك وأنا السلام يا أولاد. عاد بعد إن mahadsantahay Caydaruus in waxa adduunku hadal haya in isbedelo waaweyn oo dalka Itoobiya ka dhacay isbedeladaas hadaad noo guud marto runtii xoogaa la baad ahayd muddo fara badan marxaladii Itoobiya ay soo mareysay 7 sano u dambeeyay aad runtii in qoraal ahaan iyo faham uga qayb qaadanayay isbedelkaas muxuu salka ku hayaa muxuu ku dhashay xag u soo socdaa in Caydaruus إيدو مرة واحد ما حصلت هاي الدنيا ده سادك هاي وإيدو إلا وقت يدي نبي عليه الصلاة والسلام إلا يمك الدنيا ده واحد شريك جيس إلا جيس ما تدري نشرة دول مديد يدول مدان نيل وان كلها هاي جروب ولا وان كلها هاي ضد كنا لنا نجعله أنا كوكيلا يضل لنا ما له يدين إلهي بنله isbedelada Itoobiya ka bilaabmay waxa sababay tacadiyadii kala sareyntii dulmigii ay kooxihii tirada yaraa ee macaangaha ay ku soo wadeen Itoobiya taasoo ka dhalatay dhalinyarada Itoobiya gees la gees oo ugu horeeyaan ay hogaaminayaan dhalinyarada Oromada ee qeero magacooda loo soo gaabiyo kuwaas oo ka dhiidiyay dhammaan dulmiga lagu hayo dadkooda kacdoonnadaasi waxaa sababay san idoo hore kugu sheegay dulmi iyo ay sheegay iyo tacadiyo ba'an oo laga geysanayay dhammaan gees ilaa gees Itoobiya sidoo soo nahay qoomiyadda Oromadu waa qoomiyadaha ugu badan geeska Afrika amba waa qoomiyadda labaad ee ugu badan geeska Afrika intaan ka warhayno amba guud ahaan Itoobiya Oromadu iyagoo dhulka ugu weyn iyagoo haysta populationka Itoobiya ugu badan khayraadka ugu badan ayaa haddana waxa loo geysan jiray tacadiyada iyo dhibaatooyinka ugu badan markaasi ay taa xaqiijiyaan ayaa ay dhalinyaradoodii aqoon-yahankoodii mucaaradkoodii maxaafadkoodii waxa ay ka gilgisheen si ay dadkooda uga dulqaadan dulmiga taasoo maanta aad aragto in ay Itoobiya ay u jeediyeen jiha cusub amba istaraatiijiyad cusub oo hore loogu aqoonin si wanaagsan Itoobiya in saad sheegtay in Cabdixasuun muddo fara badan in xanaan military muuqda ama dimuqraadiyadda awood badan ku lahayn ayaa ka soo talinayay
muddo kooban ayaa ra-iisul wasaarahani xilka qabtay markiibana waxa uu ku dhaqaaqay isbedelo waaweyn oo runtii muuqanaya maxaa ku riixaya oo markiiba ku kalifay inuu jihadii Ethiopia u socotay uu sidaa uga leexdo horta iidow san ognahay dadkan oromada wuxuu haystaa kalsoonida waxyaabaha ku dhiirigelinaya waxa kamid ah haystaa kalsoonida shacabkiisa wuxuu haystaa oo dabada ka riixaya taageerada westernka oo door aan innaba la xaqiri karin ku leh oo doonaya inay Ethiopia qaadato istaraatiijiyadii hore mid ka duwan oo adduunyada la jaan qaada waxyaabahaas ku dhiirigelinaya waa nin dhalinyaro ah waa nin ka soo shaqeeya hay'adaha sirdoonka waa mutacallin yani waa nin khibrad u leh sidoo kale waa nin kalsoonida dadkiisa haysta waa nin aan gacan taladiisa iyo dadkiisa mid ka duwan aanay kulahayn marka waxyaabahaas markaad eegto waxay ku dhiirigelinaysaa inuu go'aanku doono inuu waddanka u jeediyo وقتي إثيوبيا مركانو إغنو إن وحا كجري إن عدد رنتي كو صلحايد إن جبهدي مجستدل ككردي وسيابا فربادان مركا لا إيغو إن أودهان ولهان جرتي إما كان حنانكا ورئيس الوزراء الدنيا موغتوا حنان ديمقراطية oo dadku si xor ah ay codkooda iyo rabitaankooda u cabiri karayaan maadaama Ethiopia muddo 17 sano iyo intii kasii horreeyayba ay ficilada noocaas ah hayaan kuwa adag ma u malaynaysaa in rabitaankan ra'iisul wasaaruhu noqonayo mid si raaga oo loo riyaaqo hore u socda horta inuu rabitaankan ra'iisul wasaaruhu iyo jihadan cusub uu doonayo inuu markabka uu jeediyo uu ka yahay kabtanka ku suura gali mayso in dad la qanciyo kulley dagaal badan uu wajahaya dagaal badan uu ka hor imanaya oo weli dadkii macangagaha dadka inay u haysteen iyo khayraadka waddanka bay siiyay dhiigga shacabka ku taajiray weli way joogaan weli awood way leeyihiin weli way dagaalamayaan ilaa tallaabada ugu dambeysay ilaa laga guuleysanayana way isku dayayaan inay jihadka wiciyaan laakiin kulley people's power baad moodaa in Ethiopia ka hana qaaday yani dadku waxay doonayaan ayuu baa hirgelaya quwad ka weyn shacabka meel kastuu joogana kulley ma jirto xitaa markaan eegno dadyooga Tigrayga inagoo isku wada qaadeen dadka Tigrayga kala barow bad amba shacabkoodu way dulmanaayeen dulmi baa haystay xabsiyadooda meelaha ugu badan imka dadyooga laga sii deeyo waxa kamid ah gobolka Tigray ayaa kamid ah marka xitaa iyadoo taageero laga helayo dadka Tigrayga ah Ethiopia kamid ah iyo shacab weynaha Ethiopia iyo dadka geeska Afrika iyo beesha caalamka kulli waxay soo dadajinaysaa in markabku aan cidna aanu u joojin doonin ayaa sida ay gargar qabaan waan gartay in cabdisoo waxaad ka mid ahayd shakhsiyaad qurbaha ku nool in muddooyinkii u dambeeyay ee dalku runtii xaaladahan aan hadda ka horreeyay ka jirin siyaasadihii markaa aad u dhaliili jiray dhawaan waxaad tagtay Ethiopia Addis Ababa tagtay iyadoo runtii hore ay ahayd wax adag in shakhsi si xor ah rayigiisa u cabiro oo aan gabanin uu Ethiopia tago oo kadibna soo laabto isagoo aan wax dhibaato gaadhin sidoo kalena in madax fara badan oo heer federaal la soo kulmo goobtaas oo kale waxa ku kulantay dad badan oo isbedelka ka wada mideysneed intaynaan u tigin runtii isbedelka ka deegaan ahaan oo aan doonayo inuu barnaamijkeena hadhow soo guda galo maxaad Ethiopia ku soo aragtay oo harana u joogtay kulaabadkaaga dambe horta iidow magaalada Addis Ababa waxaan ku soo arkay horta kaliya ma tegin dad badan oo aan isku aragtinahay akhyaara ayaa aan halkan qurbaha iska raacnay horena waxa uu sii joogay nimo siyaasiyiin oo Addis Ababa hore u joogay odayaal dulmidiida oo gudaha ka yimi iyo dulmiga ka soo cararay ayaa hore u sii joogay iyaga nagu soo dhaweeyay anaguna waxaan ka mid ahay koox qurba jooga oo haddaba joogtumaan hordhac u ahayn imla imkana waa la joogaa haddaan su-aashaada u imaaday Addis Ababa waxaan kusoo aragnay horta Addis Ababa waa caasimadii waddanka Addis Ababa waxay ka ammaan badan tahay oo ka kalsooni badan tahay Hargeysa waxa ay ka ammaan badan tahay oo Djibouti waxay ka ammaan badan tahay Muqdisho yani ammaan markaan leeyahay yani xagga cabdi ilay xagga cabsida tayada cabsiyeed ee ka qabto in kilalka laga soo weeraro yani Addis Ababa boqolkiiba boqol ka kalsooni badan maamulada dhammaan shanta Soomaaliyeed meeshay degto Addis Ababa maanta ay odayaasha iyo dadka jooga ay kaga kalsooni badan yihiin magaalada Addis Ababa iidow sidii kulli waraysiyo hore wadi la yeelatay jireen walaal
nisaan ogsoonahay Addis Ababa waxay ahaan jirtay xarun waxa la galeen cabdi ilay yani qofku u baahdo anytime ya any minute ayuu soo qaadan karayay laakiin hadda waxa weeyaan waxaas hadda way dhamaatay waxaas hadda way waqtigeedu waa foobay waa wax laga soo gudbo weeyaan haddana waxaa Addis Ababa ku sugan daqiiqadan kula hadlayo oo maanta shir kulahaa dadka deegaanka ka soo jeeda odayaashoodii siyaasiyiintoodii aqoon-yahankoodii indheergaradkoodii ganacsatadoodii iyo culimadoodii oo imikana shirwaayo waa meel laga sifeeyey amba laga xaaqay dadkii dastuurka iyo sharciga Ethiopia diidana inuu hore u socdo waan gartay waynu soo noqonaa shirarka ka socda iyo isbedelada runtii deegaanka ka socda hadda aad xundurta u tahay markii aad tagteen oo aad adiguna sidii dadna ka soo horeeyeen adiguna aad ka mid ahayd waxa ku timaada rabitaan dawladda federaalka waday mise isbedelo idinku isku abaabusheen oo kacdoonka Ethiopia ka socda qayb kaga haydeen ba ku tagteen Addis Ababa horta iidow anigu waxaan qabaa aragti ahaan waxaan qabaa dadka ku jira kacdoonadan Ethiopia ka bilaabmay inay dadka Soomaalidu hormoodu yihiin yaanu maradhalin waqti kasta qaato kacdoonada Ethiopia ka bilaabmay kacdoonada waxa bilaabay dadka deegaanka Soomaalida dadka dulmiga Soomaalida ah ku dhacay kuma dhicin dadka dadyow kale Ethiopia waliba isla dulmiga waxa u geysanayay dadkii iyaga maamulka u ahaa dadka Soomaalida ah waxa weeyaan iyadoo haddaan su-aashaada u soo noqdo Addis Ababa kacdoonada dadka Soomaalida ah ee hadda ay hormoodka u yihiin odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanku waxa ilaa iyo heer waxa lagu tala jiraa maalmaha soo socdana ka hor dhaca ma jeceli in toos loo beegsado xaruntii deegaanka ee Jigjiga iyo dhammaan tuulooyinka degmooyinka qabaleeyada iyo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka maalmaha soo socda insha Allah taala waana wax aan fogay waqtigeeda intaan bisha August la gaarin waan gartay marka isbedeladan waaweyn ee hadda Ethiopia ka socda runtii qoomiyadaha dalkan laga wada mudaharaaday qayb sida iyo dawlad deegaanka waji noocyada u galaya waxaan ognahay in sida hadaba imka aad ka hor dhacday una dhaadhici doono inay socdaan isbedelo iyo shirar waaweyn oo mustaqbalka deegaanka laga tashanaya inay caasimadda Addis Ababa ka socdaan sidoo kale waxa jira in isbedelo oo dhinacooda ay ka wada hadda xukuumadda talisa ee Maxamuud Aba Cabdilay oo iyaguna doonayeen isbedelada Ethiopia la talaabsadaan labada rabitaan sidee Caydruus isku qabanayaan horta iyadoo mid baan ku sheegayaa dawladda cusub ee Ethiopia ka dhalatay ee dhalinyaradu hormuudka u tahay iyo Cabdi Ilay sina kuma wada socon karayaan xagga siyaasadda xagga istiraatiijiyadda iyo xagga dhan walba Cabdi Ilay waxa weeyaan dawladdan cusub waa dawlad uu shaarkeedu nadiif yahay rikoorka xalay ma habeen hore waxa uu prime minister ku buuxiyay boqolkii habeen buu buuxiyay xalay ma habeen hore inta dadyooga Ethiopia qof la xabsi laga sii daayo qof hanti u lahaa loo celiyo yani wax farxad mooyaan dadyooga Ethiopia ilaa iyo imaka sidii waxyaabahay naqaanay ilaa hadda talaabaha taakama laga soo sheegayo sidaan saxaafada kala socono ma ta kale prime ministerka cusub ee Ethiopia 2 sanadood wax fiiska sii joogaya doorasho galaya yani culayska Soomaalidu ku hayso mid ka badan buu xisbigiisa ka soo baxaa EPRDF ta ma aha gudoomiyaha OBD oo la yiraahdaa uu ku hayaa prime ministerka cusub si uu cadaadis u saaray Cabdi Ilay taas waa dhanka siyaasadda haddii ay dawladda hogaaminaya prime minister Abiy ay raali ka noqoto inuu Cabdi joogo dadka Soomaalida ee gobolka deegaanka waa raali ka noqon maayaan yani haddii EPRDF iyo dhammaan xisbiyada la xulufada ah ee Ethiopia deegaanada ka shaqeeya hadday isku tagaan Cabdi Ilay ma hayn karayaan sababta dadka deegaanku way ka soo istaageen Cabdi Ilay waxay leeyihiin ay u tirinayaan maalmaha yar ee u harayun intuu ka tagay xafiiska biinilaa waaye Caydruus waxaad ka mid tahay isbedel doon muddo dheer ka hor iyadoo waqtigan maanta la jooga ka duwan yahay ayada murahan oo kale ka hadlaysay dadka runtii idinka aad idinku dhul daloolay waxay leeyihiin isbedel doonku jihooyin fara badan iyo aragtiyo fara badan oo aan meel ku midaysnayn ayaa isdhex guuraya sidaa doonaysaan in ka dawlad deegaan ahaan marka idinku aragtidina isbedel doon ahaan laga tis qaado in mustaqbalka ay noqoto xaaladda
dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia horta iyadoo qofkii magacyo kale u sameynaya kulli aragtidiisa waa hor laakiin dadka deegaanka Soomaalida kacdoonkooda waxa weeyaan waa dad shacab ah waa dad rabay waxay ku socdaan waa rabitaan shacab kulli aniga shakhsiyan de waxaad leedahay aqoon dheer baad leedahay anigu siyaasi ma yihi iska nin waxaanay activista oo de dulmiga meesha ka socdo uun dadka diidan hadda horboodaya ayuu ma kamid ahay walaal siyaasiyiin ma nihin waxaan ka midaysannahay waan is ognahay waan is xaal ognahay waxa weeyaan daqiiqad baan wada socnaa waxa kaliya aanu ka midaysannahay waa in dulmiga la diido oo dulmiga la suuliyo isla sidaas oo kalena dadkan loo horseedo dadkani waxay rabaan inay doortaan yacni Ethiopia ama deegaanka Soomaaliya ama Ethiopia guud ahaan waxa ka jiri jiray waxa weeyaan wax la yiraahdo qof baa lagu soo magacaabaya dadkaagu aanay rabin amba channel baa kamida gobolka Hargeysa ama bariga Ethiopia haysta wuxuu doonayaa qof isagu rabo ayaa lagu dul keenaya in aanu anagu qofkaan rabno doorano haddaanu shacabka deegaanka nahay kaanu rabno inaan ridno rabitaanka iyagu wuxuu ka midaysan yahay inaan dulmiga ridno isla sidaana systemka deegaanka aanu sidaa ku wadna insha Allah tacaala aan noqono dhalinyaro wixii iyagu dadkooda ay rabaan ku jiheeya kana hadla mar walbana u taagnaada waanu ka midaysannahay aragti ahaan iyo mowqif ahaanba waye shirar baa socda hadda Addis Ababa ka socda sidoo kale kulamaad jiray aad ka qayb gashay waxaa jira dad fara badan oo aragtidaada qaban laakiin waxa dad badan la isweydiiyaa waa iyo hoggaanka aragtidan hogaaminaya ee ka dambeeya ee doonaya inuu wajaho maamul deegaanadu ka jiro runtii tacadiyo fara badan oo xagga xuquuqda aadanaha oo ka ugu dambeeyay Human Rights Watch ay dhawaan tabinaysay ku kacay ka hortagi kara oo isbedelka Ethiopia hadda socda la talaabsanaya maamulku waayo ma jirto hadda hoggaanida ka dhex muuqda oo la oran karo waa cid cadcad oo la arki karo in majaraha qabanayso inaba isbedelka Ethiopia ay cagta saartay ka qayb qaadanaysa yaa waa systemka wada socotaan waayo hoggaankiinu iidow waxaan doonayaa barta inaan briefkaas iyo waxa jira ururo oo dadku isku khaldayaan urur kacdoon oo shacab iyo urur siyaasi anigu kulley waxaan ka mid ahay oon ka warhayaa oon qayb ka ahay ururka dulmidiid hoggaan buu leeyahay gudoomiyuu leeyahay gudoomiye ku-xigeen buu leeyahay system buu leeyahay sidoo kale waxaa jira hoggaan dhalinyaruu leeyahay sidoo kale waxaa jira urur siyaasadeed kan aan kuu sheegaya waa kacdoon shacabka ayaa volunteer waqtigooda dhaqaalahooda iyo maankooda intay maalaan isku geeya waa kacdoon shacab dhanka kale waxaa jira urur siyaasadeed oo siraaj la yidhaahdo oo ka mid a dadka kacdoonka hogaaminaya sidoo kale intaan ka warqabo waxay leeyihin hoggaan de waa xisbi siyaasadeed oo de kolley structurekoodii iyo nidaamkoodii bale aduguna aad saan jeclaha aad ka warhayso sidoo kale waxaa jirta jabhad gobonimo doona oo ananof la yidhaahdo oo soo jirtay muddo qarniya oo adigu ugu dhaado iga xooggaarsan tahay marka intuu waxay ka midaysan yihiin in dulmiga la suuliyo in dadkaasi rabitaankooda mustaqbal mid dhow iyo mid dheer ay qorsheeyaan insha Allah tacaala waa gartay shirar baa ka socday Ethiopia maanta ka ugu dambeeyay sida dad sheegaysa inuu ka dhacaya in caasimadda Addis Ababa maxaa u bacda shirarkaas yihiin وبعد شركاس قلها وحلا هذا قلها بدبادة صوماليات بالا هذا هدان كوعلي وحلا قلها بدبادة الصوماليات TBS حرونتيسو وحويا مكسيكو ملقالا وعد السبب حرونتيس رسمي جانا وحنا قندون إن شاء الله تعالى مقالة تكتيجا انتام بيش أوصل قاعد نسلا وقرشوي هاي قلها بدبادة الصوماليات وحكومة دوبي سياسيين تديجانك وضياش تديجانك aqoonyahanka deegaanka ganacsatada deegaanka iyo dhalinyarada deegaanka ururkaasi waa gole waa bahweyn kulmisay siyaasiyiinta aqoonyahanka dhalinyarada iyo oday dhaqameedka markaan bahweyn ku leeyahay kulli waa dareemi karaysaa waa bahweyn waa meel qof kasta oo aragtidiisa togan iyo taban ku soo gudbiyo sidii loo samato bixin lahaa bulshadan qarniyada ay dhibaatooyinka isticmaalkii ay yaaleen loona maanguurin lahaa waxyaabaha dhaxalka ay dadku ay ka dhigteen xaruntooduna waa magaalada isigu meel gaar ah Addis Ababa laakiin xarunteeda rasmiga wax noqon doontaa magaalada Jigjiga deegaanka maalmaha soo socda maanta shir baa ka dhacay magaalada Addis Ababa lagu baaqayo
dhammaan shacabka deegaanka inay bahwadaagta kasoo qayb qaataan inay kasoo mid noqdaan bahwadaagta waxaa ku midoobay iidow dhammaan ururadii aan kuu sheegay markii dhaweytoole kacdoonka iyo kuwa siyaasadaba sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa anigoo baaqa ayidaya golahaas uu soo saaray in dadka deegaanka u dhashay ay kusoo dhawaadaan dhammaan dulmadiidka koox ma aha markaan dulmadiid leeyahay yaan la arkin inaan koox gaar u jeedo ilaa waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa jiray dad dulmidiida iyo dad dulmidoona dhammaan qof kasta oo dulmidiid ah waxaan ka wadaa qof kasta oo xumaha diidaya amba oo gudnimo diid ah inuu kasoo qayb galo golahaasi wuxuu iclaamin doonaa maalmaha soo socda oo miidiyaha laga arki doona insha allah xilliga loo jihaysanayo magaalada jigjiga deegaankii waxaan diyaar u nahay annagu iidow in annagu markaan ku leeyahay waxa weeyaan waa golahaas baan ayaan sheegayaa maaha wax aniga koox gaaratona waa golahaas oon baaqooda ayiday oon kuna taageersanahay in waan gartay weli addis ababa ku shiraysaan meelaha isbedelkiinu inuu saameeya aad doonaysaan waa dowlad deegaankii soomaalida Ethiopia oo dhow 100 kilomitir idin jirta weli macabsi baa markaa jirta ku saabsan inkastoo isbedel weyn guud ahaan ka dhacay Ethiopia inkastoo in ururadii Ethiopia siyaasadan ay cabrin jirtay la fasahay inkastoo lagu baaqeen xabsiyadii dadkii siyaasadda u xidhnaa la sii dayo weli haddana waxaa jirta cabsi ah ina ka cabsoonaysaan ina shirarkaas oo kale ilaa hadda gudaha in magaalada caasimada gobolka Jigjiga u qabataan iidow magaalada Jigjiga waxa weeyaan waa darastantii hore waa darastanta geeska Afrika weeyaan magaalada Jigjiga gang baa fadhiya kugu dilaya aragtidaada xitaa adiga aragtidaada ma kugu dilaya in adeerkaaba aragtidaada qaba adiga maaha aragtidaas qabtaa maaha waxa laga yaabaa adigu inaad isaga la aragti tahay laakiin in adeerka amba ayeedaaba aragtida qabto kugu dilaya way jiri jirtay laakiin hadda xitaa haddii isku dayo joojin mayno haddaan su-aashaad u soo noqday iidow Ethiopia laba Ethiopia jira waa laba Ethiopia ayaa jira labada Ethiopia waa Ethiopia aad xor tahay diintaada dhaqankaaga Soomaalinimadaada iyo aaminsanaanta waxaad aaminsantay reerkaada xor tahay iyo maalkaagaba iyo Ethiopia kala sarreysa oo kala boqoran oo Jigjiga ugu horeyso cabsi nagama hayso laakiin wax kasta xeeladaysi iyo wax u baahan in la talo badsado marka san hore kugu sheegay xaruntiisu wuxuu noqon doonaa iidow Jigjiga waana la tegayaa maalmaha soo socda biidnillah wayay عدرسو markaynu eegno isbedelada soconaya dhanka kalena hadda maamulka dowlad deegaanka ka taliya Soomaalidu dhankooda yar waxay ka dhawaaqayaan inay isbedelka la talaabsanayaan san horena ku weydiiyay waxa dhawaan madaxweynuhu sheegay in jeelkii dadka lagu xiri jiray mudooyinka faraha badan la jeelogaadeen la burburin doono loona bedeli doono goob lagu cibaadeysto in maxaabiistii meesha ku jirtay la sii wada daayay in jahada dalka guud ahaantiisa u kacay sidoo kalena dowlad deegaankuna ay u kacaysay la talaabsanayso maadaama markaa aragtidooda hore ay ka soo gureen sida muuqanaysa ma isku daydeen oo isbedeladana wadana qayb ka dhigtaan oo ku biirisan ma isku daydeen si midnimo guud loo helo iidow waa su'aal wanaagsan xaqiiqatan cabdilay maanta wuxuu la shiray golihii baarlamaanka wuxuu ka sheegay inta aad sheegayso ka sheegay sidoo kale wuxuu qirtay dhammaan jariimooyinkii iyo dambiyadii uu galay cabdilay lala hadli maayo waa dambiile waa gacan ku dhiigle wuxuu geystay xasuuqyo wadareed wuxuu geystay dilal keliya wuxuu geystay oo imika ugu dambeysay allah yarxame dilkii marxuumad taysiir yar oo gabadh 15 jir ahayd ayaa ugu dambeeyay qofka kula aynu wada hadalno waxa weeyaan waa qof dad aragti siyaasi kala qaba laakiin waxa weeyaan qof dambiile ah yani dambiile maxkamad wax ka sokayso oo yani ilaa heer maxkamadeed oo cadaalad la tigsan wax kale loo hadli karaa ma jiro cabdi wuxuu wada hadlayaan sharciga inuu wada hadlayaan anagu taasana aaminsanahay joogaadeen waxaan maqlay inuu yiri waan xirayaa anigu dhadoogu maqaalo laakiin cabdi waxaan u dirayaa baaq inaan joogaadeen xidhin ayaan cabdi ugu baaqaynaa insha Allah taala hadduu isagu isku dayano xidhana anagaan xidhaynin joogaadeen waxa weeyaan ilaa uu cabdi iyo xulafadiisu ay joogaadeen soo arkaan insha Allah masaajid laga dhigi maayo sababtoo ah waxaan maqlay inuu qolo wasiirada iska mid ay yiraahdeen waxaan joogaadeen ka dhiganaa meel loo dalxiis tago oo amba museum ayaan ka dhiganaa
museum waxa laga dhigayaa marka labada dhanba arkaan dadka shacabkii kuwii dulmanaana way arkeen kuwa dulmiga wadanaha arkaan markaasaa uu noqonaya museum dalxiis loo dalxiis tago dee yani xiisuu yeelanaya marka iidow ninka sharciga mooye meel kastoo kale lagula sheekaysanaya ma jirto waye waxaad qeexday sharciga meel lagula soo goysanaya ma jirto haddii isla xisaabtan uu yimaado oo dad fara badan oo Etoobiyada guud ahaanteed iyo gaar ahaan deegaankaba tacadiyo ay tirsanayaan in sanado fara badan xuquuqdooda lagu tumanayay sidoo kalena in ra'iisul wasaare Abiy uu isaga laftigiisu sheegay in dadka jirdila loo geysan jiray oo aan ahayn wax bini'aadantinimada shughul ku leh isla xisaabtanka noocaasa iyay tahay inay qabato ma dowlad deegaanka gudihiisa ay tahay in laga fuliyo ma hawl dowladda federaalka u talba waayo inay waxa qasoorto ciddii dulmiga loo geystay muddooyinka faraha badan leh dowladda federaalka oo uga fadhinaa dalka iyada ka mas'uula iyada haysata sharciyada dalka ka dulmanna loogu hiiliyo ka dulmiga wadana loogu hiiliyo sharciga la hor istaajiyo loogu hiiliyo sharciga la hor istaajiyo dowladda federaalka waa wakiila hadday ku dhiirato waan ka rajaynaynaa wadarkiisa warbixinta Human Rights Watch ay soo saartay waad ka warhaysaa cadaadisyada Cabdiile imka haysta kulle waa ka qayb dowladda federaalka cadaadisyada Cabdiile haysta iyadana hormoodo ah haddii ay xitaa dowladda federaalka ay waxba tallaabo ka qaadi weydo waxaan ku qanacnaa inaan anagu kuwii na dhibay aanu sharciga soo istaajino kuwa hantidayada haysta inaan sharciga soo istaajino kuwii annaga Soomaalinimo iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaan noola diriray waxaan ka jecelahay inaan anagu maxkamadaha jigjiga iyo kuwa goday aan soo istaajino insha Allah taala wayahay waxaan doonayaa inaan barnaamijkeena soo dhex geliyo in mawduuc ku saabsan jabhadda ONLF waxay ka mid tahay garab hubaysan iyagu doonayay in cadaadisyo markaa deegaanka ka tirsanayeen inay cudud military ku dhaqaajiyaan kasoo sanooyin fara badan runtii waxba uga qabsoomin isla waqtigan dhow waxay shir weyn ku qabsadeen in waddanka Eritrea dowladuna waxay hadda ka qaaday in xayiraado hore amba sidoo kale ururo lagu diray oo argagixiso ma u malaynaysaa in ururkaasu in hadda in uu si nabdoon uga qayb qaadan doono uu noqon doono urur nabad wax ku raadsha oo isbedeladan hadda socda wax ku darsanaya xiriirsan ma leedin idinku kolley ONLF waa dad waa urur siyaasi oo ururadii siyaasiga ayaan ku sheegay urur ka mid ah oo ururkaas Siraaj kamaan ka aragti duwan oo doonaya inay Ethiopia ay xornimadooda ka qaataan waa markii ugu dambeysay ay xorriyadda deeyeen imika wax ku shirayaan Asmara shirkoodu soo dhamaaday prime ministerka way sarkeen Abiy wasiirka arrimaha dibadda warkanu iyo ONLF way sarkeen kolley ONLF anigu kolley baaqumaan anigu kolley dadka ay isku deegaan baanay isku dad baanay dadkaas laakiin waxaan rajaynayaa baaq wax ka badan u diri karaa ma jiro baaq inay baaqa prime minister ka soo jawaabaan in dadka deegaanku wadadii hore oo ka leexataa waxa weeyaan waa hadday soo xidhood ka leexataa waa geesinimo nacasnimo maaha marka waxaan kolley ugu jawaabay wuxuu baan baaq u diri lahaa ONLF laakiin wax kale oo odhan karaya iidow jabhadda xoreynta ogaadeynaya ma jirto aan baaqaan nabadeed ahayn way waan gartay intii ku jirteen aragtida ku saabsan isbeddeldoolnimada waxaa jiray dad fara badan oo markii runtii in magacyadooda laga maqlo in baraha bulshada iyagoo hadda inta badan waa badnaadeen dad qurbaha joogay tacadiyo loo geysan jiray eheladooda gudaha cabdisow ku sugan Idrisow dad fara badan oo groupkina ka mid oo qaarkood anigu aan wareystay ayaa dhibaatooyin soo gaadhay markii dambe door biday inay shaqooyinkii awoodeen isaga hadhaan dadkii hadda intii isbedeladana dhacay dhibaatooyinka noocaasi ku socon jireen ma yaraadina ma istaagin maya way socotaa waana sii soconaysaa ilaa iyo iidow mar dhow waxaad weydiinaysa su-aalaad lahayd ma lala hadli karaa qofku yani markuu dulmiga joojiyo ayaa lala hadli karaa maanta ugu dambeysay buu isku dayay shirka golaha badbaadada Soomaaliyeed Addis Ababa Hotel Friendship ay ku lahaayeen inuu carqaladeeyo oo uu intuu niman gaangisa u diray oo ciyaalkii iska ciyaar jiridii magaalada Jigjiga uu diray ayuu arbushay yani waa dawlad waxa weeyaan shacabkeedii arbushaysa shacabkina uu ku carray sharcigi lacalla annagaaba sharcigi ma ka ilaalina oo meelaha yar ee aan isleenahay waa laga in baan wax ka qaban karayaan aanu geyno dacwad iyo aanu geyno hadal iyo wax kasta ku geysan karna geysanay labada annagaaba moodaa dadka shacabka baad moodaa in ay
sharciga ilaalinayaan laakiin cabdi ilay marnaba ka filan mayno inuu sharciga ilaaliyo de waa nin isdhaqlihiisa aad cid waliba og tahay oo gaankiisa haddii aan su-aashaadu imaadayido ilaa maalinta ugu dambaysa cabdi ilay uu sii dhimanayo ilaa iyo maalinta ugu dambaysa uu sii dhimanayo cabdi ilay qof uu xidhaya yani dictatorka waxaa lagu yaqaanaa in qofka dictatorka waxaa lagu yaqaanaa ilaa iyo maalinta uu dhimanayo inuu dadka u muujiyo inuu nool yahay inuu dadka u muujiyo inuu weli cabsi dadka sii gelin karayo sida dadka u xidhi jiray buu u xidhaa siduu gabdhaha gubsan jiray buu gabdhaha gubsadaa siduu dadka u leen jiray buu ilaa hadda ku tala jiraa inuu dadka usii laayo marka iidow su-aashaada haddaan waxaan kusoo koobayaa haa dadkii u xidhxidhaa waye haddii isbedeladan ay dhacaan oo idina aad doonaysa inaad gudaha u gashaan qaab noocee ayaa lagu bedeli karaa hadda maamulka gacanta ku haya madaxweynaha cabdilay ka tasho madaxweynahaas walaal wuxuu yaallaa shacabka deegaanka wuxuu yaallaa odayaasha wuxuu yaallaa siyaasiyiinta wuxuu yaallaa aqoon-yahanka deegaanka annagu muhiimaddeedu waxa weeyaan inuu cabdiilay tago waxaana ku kalsoonahay odayaasha deegaanka siyaasiyiinta in ay dadka u keeni doonaan horta imanka iidow maba taagnaba yaa madaxweyne iyo ma taagnaba yani waxay imanka taagan tahay ma noolaan karnaa yani ma noolaan karnaa dadka kale si u nool yihiin ma noolaan karnaa ayay imanka naga taagan tahay weli ilaa heer yaa madaxweyne noqon doona weli su-aasha waxaan u malaynayaa inaanaan weli gaadhin marka xalka nabad helista ma waxay noqonaysaa in idinku aad gudihiina ka heshaan mise wuxuu ka maarmi mayso in dowladda federaalkii ay soo dhex gasho oo arrinta dowlad deegaanka soomaalida soo fargeliso dowladda federaalka kolle waa loo sheegay waana lagu wargeliyey xaqiiqata intaan ka warhayo annagaana tegayna shacabka deegaankaana tegaya shacabkaana iska dulqaadaya dulmiga wax aan uga fadhino prime minister iyo ciidan iyo maaha isagaa cabdi ciidanka adeegsada isagaa in kolba qoomiyadii timaada uu daba naageeyo oo u raxleeyo isagaa lagu yaqaanaa annagu waxaan aaminsannahay inaan leenahay deegaanka labaad ee ugu ballaaran dowlad deegaanka dalka etoobiya waxaan aaminsannahay inaan nahay qoomiyadda saddexaad ee ugu tiro badan etoobiya kuma qanacno in aanu cid aanu qoomiyad naga yar amba qoomiyad nala siman inaanu daba fadhiisano aanu daba istaagno laakiin cabdi ilay ayaa lagu yaqaanaa kolba kuwii meesha yimaada inuu daba istaago u sacabtumo annagaa tegayna annagaana iska dulqaadana cid allaali cidaan uga daba fadhinaana ma jirto jigjiga annagaa le dhagax buur annagaa le cabdi iyo kuwa ku hayaana iyagoo ku marti waa gartay ma idinla soo xidhiidheen iyagu haddaydan idinkula xidhiidho idan waxba ku darsano arrinku inuu taagan yahay ha ka tegaan iyagu ma idinla soo xidhiidheen oo ma idin sheegeen inay isbeddel rabaan oo noocii hore wax u badeen wax ka beddelayaan iyagu wax yaqaanaan iyagu siyaasadda waxay ka yaqaanaan qolyaha reer galbeedku waxay yidhahdaan propagandku siyaasadda waa 3% qayb ayuu ka yahay siyaasadda laakiin cabdi ilay siyaasadda wuxuu yaqaanaa 99% buu propagandku u yaqaanaa isagu yani isagu maqluub buu shaqeeyaa nalamuu soo xidhiidhin laakiin uu nala soo qaabkaad u sheegaysana noomuu soo xidhiidhin laakiin wuxuu nala soo xidhiidhay isagoo nahandadaya isagoo ehel iyo qaraabo iyo wixii gudaha joogayba u caga juglaynaya fariintaas wayna soo gaadhay laakiin fariinta iminka aadna faraysaa oo kale nagamay soo gaadhin waa gartay muddooyinka u dambeeyey kacdoonnada ka hor iyo kadibba waxaa dhacay rabshado u dhexeeyey soomaalida iyo oromada dadka qaar baa reer rabshadaha waxaa ku dhex gabanaya maamulka uu doonaya inuu dadka colaad kala dhex dhigo dad kalena waxay leeyihiin dadka oromada ayaa deegaan balaarsi doonaya idinku maadaama labada dhanba aad tihiin dadka madax bannaan maxaa ka ogtihiin dhacdooyinka noocaasa kolley de iyadoo iska qurba joog baanay wararku iska teelteel bay naga soo gaadhaan laakiin colaadaha dadka soomaalida iyo oromada ka dhexeeya waxaa hurinaya waa tigrayga iyo cabdiile sababtoo ah waxay dan ugu jirtaa maalin walba meesha ka olasho si ugu cumri dheeraysto shalay toole cabdiiley wuxuuna lahaa muuqaaladiisii youtube-ka iyo meel walba ku jiraan isagoona leh tigray waa walaaladeen tigray so maantana wuxuu jigjiga ka dhex leeyahay oromo yani waxaad yaqiinsanaysaa in maalin walba meeshay dabayshu u socoto inuu markabkiisu inuu socdo dadka oromada iyo dadka soomaalidu waa dad walaala ah waa dad isku dhaqan ah waa dad aanad kala garanayn hadday kaa soo baxaan gabadha soomaaliyadda ah iyo gabadha oromada aanad kala garanayn waxyaabaha fajacale
xasuusanno xasuuqyadii ka dhacay kursum meesha la yidhaahdo qoranji miyahay wax noocaasa ay dadka ay ku xasuuqeen ciidamada new boolisku ay ku xasuuqeen dadka tigrayga ah waa maalintii koowaad ee ay bilaabantay colaadda oromada iyo soomaalidu qurbahan ogeyn dadka cabdiilay taageera ilaa gudihii in mudaharaadadii waaweynaa dad ilaa 1 milyan gaaraya stadiumka magaalada jigjiga lagu soo saaray iyaga oo taageerayo uu leeyahay tigray markaan sidaa leeyahay ma qarinayo dhiigga dadka soomaalida ah ee ay oromadu ay ka gashay dadka soomaaliyeed ma qarinayo waan cambaaraynaynaa laakiin maalintaas aan uga soo horjeednay in oromo oo xuquuqdeeda doonaysa oo tigray loo raaco ayaan maantan uga soo horjeednaa aan ugu baaqaynaa nabad iyo in dadka soomaaliyeed dhiigooda cabdiilay uu baajiyo isagaa ilaahay wakiishay isagaa ka mas-uula maanta oromadu dad bay laysay cabdiilay isagaa maanta haysta kursigii isagaa fadhiya dadka maanta iska daa ibni aadanka quraanjada ku dhimata deegaanka cabdiilay baa ka wakiila ilaahay maanta marqaamo qabsanaa dee anoo ogin aan ilaahayba garanayne kamuu hadal muu cambaarayn annagaan ilaahay maxaad uga hadlaadin annagu yaa mas-uul laga dhigtay yaana doortay yaa intay meel warqad ku ritay yaa wakaalashada dadka yaana siiyey waxaan u sheegayaa dadkan cabdiilay baa ka wakiila dhulka isagaa ka wakiila hawada isagaa ka wakiila gaasta iyo baasroolka isagaa ka wakiila annaguna waxaan leenahay waajibkeena inaan ku ilaalino laakiin waxaan isla garanaynaa inuu cabdiilay maadaama oo uu dayacay mas-uuliyaddiisii in anagu doorkeena qaadano marka anagoo doorkayga qaadanayna muwaadinimo waxaan cambaaraynaynaa xasuuqa ay dadka oromadu ay ku hayso dadka soomaaliyeed mashruucanna mashruuc ka yimi maqaluuhaa si loogu jeediyo oromada dadka soomaalida ah mashruucii baana aad moodaa in sidii la rabay laguma guulaysan laakiin qayb ka mid waa lagu guulaystay mashruucaas wuxuu ka yimi tigray cabdisiduu qirtay maanta waxaa loo soo dhiibay isaga waxaana fuliyay dhiig booliska waaye waxaan doonaya dhankan wax kaa weydiiyo jeel ogaadeen jeelkaas muddo fara badan ayaa dadka korolay in badani dhegta ka maqashay in ciqaabo fara badan iyo tacadiyo fara badan ayaa ummado fara badan fikirkooda loo cadaabayo waa lagu geysaa waxaa ugu dambeysay warbixintii ugu dambeysay Human Rights Watch dhawaanta soo saartay Ethiopia guud ahaanteeda waxaa socday sidoo kale marxalad lagu cafiyay maxaabiis tiro badan oo siyaasado xidhan intaynan dhibaatooyinkii xabsiga ka dhici jiray oo aan doonayna sira dul taagna inaan ka hadal dhab ma tahay in dhammaan maxaabiistii ku jirtay xabsiga ku xidhnayd la sii daayay jeelgaadeen bad sheegaysaa jeelgaadeen may lama sii daynin jeelgaadeen waxaa ku jira 5,000 oo maxbuus baa ku jira jeelgaadeen anigu jeel jahannaban oo aqaanaa 5,000 ciidii waxa laga sii daayay dhowr iyo 70 ruux oo dulmi ku xidhnaa shalay toole maanta waxba ma maqal la sii daayay laakiin shalay waxa iyaga ugu maqalaa 109 qof baa la sii daayay 109 qof iyo dhowr iyo 70 qof oo la sii daayay ciidkii aan soo dhaafnay rabadaan soon 200 oo qof maxay ka tahay 5,000 qof muu sii daynin ilaa imika uu haystaa baaqyada is soo taraya ee Human Rights Watch dowladda federaalka Ethiopia qurba joogta dadka gudaha jooga iyo xitaa dadka insaaniyadda oo dhaqaaqa way og yihiin jeelgaadeen tirada ku jirta isaguna wuxuu yiri 7 qof baa ku jira 7 sii daayay buuri waa been kadaab way ilaahay ka go'ay 5,000 qof baana ku jira waxa ka daran oo dadka laga jeediyay jeelka magaalada goday waa jeel ka daran jeelgaadeen magaalada goday ciimal ahaan waxa ka kulushahay magaalada jigjiga waxa aan waa dhul kulul magaalada goday jeelka goday uma dhisna sida jeelka magaalada jigjiga u dhisan yahay waa jiingad dhammaan waxaa laga sii jeediyay indhihii shacabka jeelashii kale deegaan ku yaalay jeelgaadeen baa lagu jeediyey jeelgaadeen waxa laga sii daayay dad tira yar marka hadda su'aashaadu imaado jeelkaasi jeelgaadeen waxa ku jira 5,000 oo qof baa ku jira ilaa yimka inta loo yahay intii la dilay waa la dilay inta alla hadda ku jirtay xogaalku loo yahay waa 5,000 oo ruux baa ku jira lamana sii daynin umana malaynayo inuu sii daynayo ilaa iyo dadka nasri ilaahay u yimaado inta ay dadkoodu inta jeelka u daataan ay dadkooda soo deystaan wallahi ina waxaan aaminsanahay inaanu cabdi sii daynin sababtoo cabdi waa fulay ninka kartida leh xitaa marka boolisiga siyaasadda laga baxo qofku marka insaaniyad uu leeyahay ama ninka siyaasiga uu nin kartida yahay ayaa wuxuu isdhaahdaa qofkan wuxuu doonaha ka yeelay sii daa laakiin cabdi isagu kartidaa ma laha wuxuu aaminsan yahay in
dadkan haddii uu sii daayo kacdoonnada Addis Ababa kacdoonnada gudaha jigjiga goday qabri dahar wardheer ka socda gobolka city inay ku biiri doonaan dadkaas isagu aaminsan yahay nin waa nin nooca qaabka u fikiray weeye inta uu dad uu sii daayo u dhaariyay boqol iyo sagaal qof aan kuu sheegay yani kalsooni daradu heray ka taagan tahay ninka 109 qof uu sii daayay lama oran inta albaabka laga furay 109 shaqeeyana qof baxa lama oran ala qof baa loo soo daayay qof kasta waad ifris wad baari kartaa qof kasta waxa loo keenay wasiir ka kilalka وايه dawladda waxa muuqanaysa in cilad farsamo darteed uu khadku weyn ka go'ay in ay daruus amba in uu ka tagay in awoodda khadka internet barnaamijku wuxuu guud ahaan caawa ku saabsan yahay isbedelada waaweyn ee dalka Itoobiya ka socda sidoo kalena aynu ku eegayno saameynta ay ku yeelanayso dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi oo ka mid ah isbedel doone ka soo jeeda deegaankaas qurbaha ku nool muddo far badanna uu ololeynayay in deegaankaasi nabad iyo midnaansho laga helo barnaamijka ayaan ku soo casuumeynaa mar kale ay daruus oo filayeen oo khadku ka go'ay dawladda barnaamijka ayaynu isku dayeynaa oo aan kaga hadlaynay isbedelada waaweyn ee dalka Itoobiya ka socda waxaa marti noogu ahaa Caydaruus Axmed Cabdi oo ka mid ahaa isbedel doonada in deegaankaas ka soo jeeda muddada badanna ku taamayay in dalkaas runtii laga helo kala dambeyn iyo nadaasho Caydaruus barnaamijka ayaynu ku soo casuumeynaa khadka ayaa ka go'ay waxaana filayaa cilad farsamo inuu barnaamijka ku soo laaban doono khadka ayuu hadda si wanaagsan u soo gelayaa in Caydaruus waxaan doonayaa in taariikhda barnaamijkeena waxaanu kaga hadlaynaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalka Itoobiya ka socday in gaar ahaan isbedelada muddooyinka ugu dambeeyay dowlad deegaanka ka socday khadka ayuu hadda ku soo laabtay in Caydaruus marka la soo dhawow in waxa filayaa in cilad darteed aad khadka uga laabatay barnaamijkeena halkii baynu ka soo wadaynaa waxaan doonaynaa in xabsiga Jeelogaadeen baynu ka hadalnay sidoo kale waxaad sheegtay in xabsi weyn uu ku yaalo magaalada Goday oo runtii magaciisa anaguna hadda aan sida Jeelogaadeen caan uga noqday ama loo maqlo aan loo maqal xabsiga isaga maxaad warbixin naga siin kartaa maxaabiis intii leegba ku jira dadka ku jira si dambiyo noociyay ah ayay u kala xukuman yihiin oo loogu haystaa iyow horta waa cilad imi soo galay telefoon gudaha waa soo galay saasuu telefoonka iga go'ay waan ku soo noqday mahadsanid imkana waa iska telefoon dambe waxaan rajaynayaa inuu soo geli doono insha Allah iidow Jeelogaadeen haddaan kuwa cabiro oo is dhahdo yani iidiyo dadkan daawanaya cabir ka sii yani waxay ugu qaadanaysaa ilaa inaan ka geeyoon bay qaadanaysaa haddaan xaalad ahaan kaaga warramo Jeelogaadeen waxa ka jirana yani maankaaga kuma ma gelayso waxa Jeelogaadeen ka jira yani waxa Jeelogaadeen ka dhex dhaca waxa aanu ibni aadan samaynin ibni aadan adduunyada ku nool wax aanu samaynin oon isla ibni aadan kale ku samaynin baa Jeelogaadeen ka dhaca yani sheekooyinka yani wadnaha ku taabanaya waxa kamid ah shalay dadkii la soo daayay Jeelogaadeen laga soo daayay waxa ku jiray oo leeyahay hadashii ilmo yar oo 7 jir waa wiilka wuxuu ku dhex dhashay Jeelogaadeen waa 7 jir wuxuu ku dhex dhashay Jeelogaadeen ifrisiga raadi oo jigjigo la xidhiidh weliba waa jeclaan lahaa wiilka waxa ku tala jira warbaahinta caalamiga insha Allah taala aanu soo madhino wiil 7 jir waa ku dhex dhashay Jeelogaadeen aabihii waxa la dilay 7 wiilka 7 jirka aabihii waxa la dilay 5 sano ka hor hooyadii isaga waxay dhimatay ilmaha yar waxa ku dhex dhimatay Jeelogaadeen waxa u dhimatay irbad dhiig joojina u dhimatay yani waa la hagraday gabadha umusha ah in si fiican loo muuliyo oo si fiican u dhasho يعني هذا Jeelogaadeen waa ka wiilkeena shalay uu soo baxay marka wiilkeena markii hooyadii dhimatay waxa
gacanta ku haysay oo gacanta ku dhigtay gabadh iyaduna wiil kale oo isla maalmaha ilma wiil kale dhashay gabadhii baa naas ku duuday 7 sano kadib wiilkeeda ayuu jira ayaa shalay laga baxa ilinta ka baxa waxa uu garanayaa maxaa loo haystay markaa isaga dambi ku galay loo haystay muxuu yahay already hooyadii aabihii baa la haystay aabihii waa la dilay hooyadiina way dhimatay ku dhex dhimatay oo meydkeedii ayda loo dhigay yani waxyaa jeelwaadi waxa lagu leeyahay wax lagu xaqiijinaya dadka soo baxa jeelwaadin dadka soo baxa ee ku dhintaa xitaa meydkooda ehladooda loo xitaa dar ilaahay qofku la dilo waa la dilo haba qariyaan xitaa ka dar ilaahay ugu dhex dhinta dayac ugu dhex dhinta ee gaajo ugu dhex dhinta ee jirdil ugu dhex dhinta meydkiisa qofkiisa looma history baa lagu leeyahay 10 sanadood ninkaasi marna hoggaanka nabadgelyada marna uu ahaa madaxweyne ku sheeg oo ahaa uu tigriga u shaqeynayay hal meyd laga soo saaray jeelwaadi lama arag wiilkii yaraa shalay tolo markii askartu ku tiri ka baxabsiga uu soo baxay dabadii markuu soo istaagay dad dabadda waxa taagnaa ehladooda ku sugayay ayaa dabadda taagnaa oo la yiri dadkoodu baa la soo deynayaa wiilkii yaraa maxquul dhaqaaqi cid ma garanay uu ooyay xabsigii uu dabcan dib ugu noqdo ilaaladii xabsiga ilaalinaysay ayaa wiilkii yaraa dib u diiday oo soo cisay wuxuu u ooyay inuu xabsiga ku noqdo gabadhii naaska siisay ee wiilka yar uu la koray iyo ehelkii uu ku yeeshay jeelwaadeen inuu dib u noqdo wiilka doonaya nin ka mid ah dadka xabsiga ka soo baxay oo naga hadda jecleen magaciisa ka sheego ayaa wiilka yar garanayay ay intuu wiilka gacanta qabtay buu kaxeeyay si uu eheladiisa u daydayo iidow jeelwaadeen waa ka waxa magaalada dhanaan gabadh degan oo hooyo ah oo 5 caruur haysata mise afar baa la yiri ayaa markay 500 kilomitir buu jirtaa magaalada Jigjiga goday ee dhanaan meesha la yiraahdo maxaabiist baa la soo deynaa markay maqashay barteedii ka soo qaaday waxa isla shalay ma aha daraato dadkii tirada yar la sidii ka mid ahay ay qisaas dhacday maamadii wax ka soo dhacday dhanaan caruurtii bay soo qaaday Jigjiga maamadii markay Jigjiga timi ay jeelwaadeen soo istaagtay ayaa dadkii maxaabiista dad ka mid ah ayaa waxay u sheegeen ninkeedii barhoreen la dilay gabadhaas waxa caruurta u korsanaysay oo ku niyad samayd maalin maalmaha kamida ayuu aaboodu iman waniga ku soo bixi yani rajay lahayd rajadeedii shalay toole daraa toole ay soo gabagabowday iidow jeelwaadeen waqti iskaga lumin mayno jeelwaadeen adugu caqli baad leedahay bal cabir ka qaado runtii waa dhacdooyin aad looga murugoodo dabcan oo aad muruga damqado marka waxaasoo runtii cuqubay deegaanka ka dhacday dad loo geystay waxa noloshu way soconaysaa waxay runtii qasab lagu sbanaya in la wada noolaado oo talaabada hore looga sii gudbo qaab nuuciiba in ummadii dulmiga noocaasa loo geeyay iyo kuwo fara badan oo barkoodna la adeegsanayay kuwo badanna hadda aysan haynin meel kale oo aan halkan ka inay ku noolaadaan mustaqbalka iyagoo isku qalbisiinan dal iyo dad wada ahaan karaan sii wada jira maxaa idinku saa doonaysaa inaad ummadda u midaysaan oo ummadaha la kala dilay ama mustaqbalka isku jaha iyo isku meel isu keentaan إذا كل أرجو نيو قاعدة أمثلة قف هان وقاعدة سياسات معها أور لما وداعو كوح لما وداعو المهيج حتى لما وداعو يسلم تيتونا وحن قوا عرقتي تذكري من بدوي كران أنتوا عبدي لي شو تذكري إتو بيض كلا وحبلا ما قيبسن كريان خيرات لما قيبسن كريان أنتوا عبدي لي شو تذكري من نوران كريان أنتوا عبدي لي شو يعني نلاش هيدي يا وحسكو حران ما تشري كرنا أنتوا عبدي لي شو يعني مال وربا مركان إيجو عبدي لي وما يقصوبها هذا والله مال وربا مركان إيجو عبدي لي ويقصوبها هدي وعبد تجو إيدو سواش هذا شباب كذا دانو يمادو هدي ونكاسنا ضعفو إلهنا ضعفيه يعني ضد كيجا لبلا بلا هيسين يا مشرو نقول ما ودك يسيبو تجي نقول بدك ما يسيبو تجي نقول بقى يسيبو راعن عد له هيسين يبال أنت لو سوف يسيو قعمها لو صار يا مشرو أوتوماتيكلي بدك ويشين نكنا دول هنضعفيه واقعنا أمسنه waayahay waxaa jira oo hadda soo kordhaya harana u jiray intii xukunkan haddaan isbedelkan Ethiopia ka dhicin in dadka in haybahan ka soo jeeda kilalka shanaad deegaanada Soomaalidu amba maamul goboleedyada Soomaalida dhexdooda ka jira haybahan loo soo qabto barkood magaalooyinka dhexdooda lagu laay kuwa kalena xabsiyada la keeno
waxaan filayaa barnaamijyadii ugu horreeyeen ka wareysi kaa qabta waxaa ka mid ahaa nin dhalinyaro magaalada hargeysa lagu dilay oo nolol ahaan un magaalada uga xamaalanayay dhibaatooyinkii soomaalida etoobiya ee hadda ku sugan kasoo gaari jiray maamulada soomaalida dhexdooda iyagu ma isbedeleen intii isbedeladan waaweyne ka dhaceen gudaha etoobiya maya ismay bedelin sidii baa dadka deegaanka u dhashay loogu soo dhiibaa dhammaan soomaalida nila deriska hargeysa laga soo dhiibaa burca laga soo dhiibaa boorama laga soo dhiibaa jabuuti baa laga soo dhiibaa magaalooyinka kala duwan ee puntland baa laga soo dhiibaa caasimadii ummadda soomaaliyeed ee xamar ayaa ugu dambeysay oo cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax laga soo dhiibay last year sidii bay u jiraan su-aashaasi iidan weli waa su-aalaan aad u jeclahay inaan ku yara nasanno oon dadka soomaaliyeed aan wax yar u iftiimiyo yani iidow dadka soomaaliyeed ee kilalka degan dadka qoomiyadda tigraygu dhibaatada ay ku hayso mid ka badan bay ku haysa soomaalida kale yani waa xaqiiq indhahayan kusoo arkay yani ninka laygu yidhi ninkan baa u taliya tigrayga ah ninkan baa u taliya maamulada soomaalida ninka laygu yidhi wallahi waa naxay yani foolxumadiisa iyo dayaca ka muuqda ninkaa ilahay yaa buu ku keenaya anu waa dhisa waa ninka ku arkay soomaali gabray taqaana waa nin gabre ka sarreeya weeye dadka deegaanka degani etoobiya dhibna way ku qabaan dheefna way ku qabaan laakiin dadka soomaalida kale dhib mooyo kale kuma qabaan shalay toole cid walba way soo iibsanayeen dadka way iibsanayeen waana ku tartamayeen waanan ka warhaynaa ruux kasta oo ruux lacag dhaafsiistay iyo magaciisa oo saddexan iyo shaqadiisu waxay tahay inta waan ka warhaynaa waxaan aan ugu baaqi lahaa etoobiyadii hore maaha etoobiyadii hore maaha shalay toole haddii laydi haystay oo laydi dhibaya soomaaliya maanta xor baatiin wiilasha yaryar intay ariga ka soo qaadeen dowlad deegaanka ee sayladaha ama dhulkaa dekadaha le sida u iibgeeya ee lasoo iibsanayo horta mid la iskaga harayo amba loo ilaabaya maaha ruux waxaan anu ugu yaraan hayaa anu reer hargeysaan anu hargeysaan ka yimi hargeysaan ku dhashay dhulle hargeysaan aqaanaa waxaan hayaa ugu yaraan 20 nin oo sirdoonka somaliland ka shaqeeya oona xitaa dowladda somaliland ogeyn oo si tuuga u iibsada dadka wana iidow hadda hebel iyo hebel iyo hebel kugu sheegi karayo $500 ayaa hortooda iyagoo wiilashu taagan baa lagu kala iibsadaa beritoole tigray baan u wadnay cidna ka saari mayso ninkaa tigray baan u wadnay cidna ka saari mayso waxa weeyaan nin xaq u dirir ah maanta Ethiopia ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu ii sheegay oo baarlamaanka hortiisa ka sheegay oo naf inaanay ahayn anigu oo naf meeyi laakiin waan ka soo horjeedaa wiil miskiin oo ari iibsanayay oo la soo qabtay boqolkiiba boqol waan ka soo horjeedaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu sheegay inaanay oo naf ahayn argagixiso waxaan arkaynaa xafladda qalbi dhagax loogu qabtay magaalada Nairobi siyaasiyiinta ugu waaweyn Soomaalida ee shalay toole Ethiopia dawr dibcaankoona nif madax saartay intay goor tahay halis qabatayo halna loogu hiiliyo oo keliyata dadka soo yaacaya hantidoodii naagahoodii keensanaya magaalooyinka Soomaalida hana la soo qabto yani qarinin dulmigii hore yani dulmigana loogu darin cabdi ilayna dhibaatadu annaga nagu haya mid ka badan ayuu idigu haya Soomaaliya isagana iska qabta oo iska dulqaada yani cabdi ilay intuu dhaafay iidow intuu dhaafay kilalkii intuu dhaafay ayaa waxa ka warhaya beelaha reer Sheekh Isxaaq amba Soomaaliya amba reer Hargeysa waan idhaahdo ayaa nin siyaasiya baa maalin ma doonayay magaciisa inaan sheego nin siyaasiya baa hadlay oo siyaasiyiinta Soomaaliland ka mid ah wuxuu dhaleecay gacan ku dhiig la cabdi ilay dhibaatada uu ku hayo dadka reer Sheekh Isxaaq ee degan Ethiopia unkaas sheegay beeshiisii ayaa u tagtay siyaasigii waxa lagu raaligelin ka bixi maadaama cabdi ilay aad wax ka sheegtay raaligelin ka bixi u diiday wuxuu dhibaatada baa jirtay san raaligelin uga bixiyaa waxa lagu yiri cabdi dad inaga kamid ah ayaa bartaa degan oo reerkeena ah markaan iska aamusno
ninkii ayaa la soo garbaduubay beeshiisa iyo suldaankiisa soo barbar fadhiistay cabdi bay raaligelin siiyeen bal hadda hadalkaa u fiirso waa nin keliya too sheegay dadka reer sheekh isxaaq asal ahaan etoobiyaanka ah ee dhulka dowlad deegaanka dega laakiin hayb ahaan reer sheekh isxaaqa waa nin ka hadlay inuu sheego u hadla dadka saxafi baata iidow saxaafadda reer somaliland ragga ugu afka dhaadheer asxaab badnay waa nin aan wax wada baranay nin aan isku xaafad ka kornay nin aan kubadda wada ciyaari jirnay iyo nin aan isku tigaranay ka koobayin maanta saxafi hargeysa joogo hadli karaa ma jiro iidow adna waad ogtataa nin saxafi hargeysa joogo oo arrimaha dowlad deegaanka hadli karaa ma jiro anu puntland iyo soomaalida kale kulle dhibaatada way la qabaan oo aqoon badan ugu melihii laakiin waan dareensanahay way la qabaan marka maadaama hargeysa garanayo oo asxaab badan aan ku leeyahay sababtaasaan ugu soo celcelinaya saxaafadda somaliland iyo hargeysaba saxaafadda waan xidhiidhnaa ka hadla baan ku dhahdaa nin waliba wuxuu ku garaa wuxuu kuna dhibaatada soo jirtaa laakiin kama hadli karno yacni hargeysa iyo jigjig waa isku mid hooyada iyo hargeysay joogta uma tegi karo hooyadii hargeysay magaalada hargeysay degan tahay uma tegi karo meelaha kale geeska afrikaan kula dhudhuntaa magaaladan ku dhashayna cabdiiley baa ayaa haysta oo jooga waan ogahay sirdoonka dad kuwa haysta waan hebel iyo hebel baan garanayaa waan la hadlay waxay igu dhahay hayman intii lagu qaadan lahaa kuma hasku imanin yani hargeysa u baahan xoreyn kale hargeysa ninka ka xoreeya aniguna tijaana ku xoreynana intaasaan hadalka waan dheereeyay way wax badan baad inoo soo ka hadashay in runtii waxyaabo fara badan xaqiiqooyin jiro weeyaan la taaban karaynin saxaafaddu aanu ogaal u ahay dabcan waxa gudaha Somaliland marka laga tago tacadiga Ethiopia ka imanaya ka gudaha kaga filan ayaa filaya inaysan maanta meediyo xor ah oo dhibaatooyinka mandaqada ku hareersan soo bardhigi kara jireen waa arrin ka garaabayo Idriso in waxaad ku jiray eedaada imika hadda aan tirinayay runtii u badnayd waxyaabo waaqici wada yaala kuwa soo baxsanaya ee xasuuqa noo geystay haqarna waxa jira shakhsiyaad in gabood faliyo iyo dambiye ka soo geystay in kililka oo hadda in gabaad ka dhiganaya deegaanada Soomaalida hay'ado wajira hebel baan garanaya waxa magaalada wajaala ka talaabay daraatolo maalintii ka horeysay muxtaar sheekh maxamed subane oo kamid ah gacan ku dhiglayaasha ugu waaweyn deegaanka dadka aad ugu badnaa xasuuqay kamid ah xaafadda istaarku xaskiisa dejiyay anigu aqoonta aan jigjiga u leeyahay taan hargeysa u leeyahay baa ka badan waxa hargeysa gala daqad baan ku soo waan karaa wasikin laakiin jigjiga information-keeda raadiya time bay u qaadanaysaa ina maxamed subane ayaa xaskiisii keenay khadar cabdi ismaaciil oo loo yaqaan khadar xoolo ayaa xaskiisii keenay deeq oo ah ninkii new booliska haysta walaalkii oo ka yar cabdi ilaahay adeerkii ah oo ah wasiir ku-xigeenka biyaha ayaa suuna maanta hargeysa jooga oo caawa jooga hotel Nasr Facebook aragtay mooye ina laba gole deeq laba gole wuxuu weeyaan waa walaalkii yar deeq Cabdiraxmaan laba gole janag new booliska haysta يعني waxaan ku sheegay inay hargeysa jigjiga isku mid noqdeen dadkii xasuuqa jaamac dubad ka geystay oo cabdeeq laba gole walaalkii oo jaamac Cabdiraxmaan laba gole ah ayaa caawa Nasr nabad ku caawinayay markay sidaa tay gacan ku dhiiglihii dadka laayay reer jaamac dubad reer sheekh saxaab ay maanta Nasr ku casheynayaan ay waliba waxay doona ka sameyn karayaan oo khadar inay dalka ka geysteen iyadoo bariga waraysiga laga qaadaysan oo kala aha anu san hargeysa joogi karaya markaa iyadoo adiga aadan imkana hadlay hargeysa walaahi tegi karin caaws waraysiga ma qaadan adigu ma tegi kartid weerarka bari lagu soo qaadan dadka doontaa adiga iyo meediyaha Soomaaliland live media saxaafadaada wadarka doontaa nima yahow isxoreeya dib intii annaga aan nagu daawan karteen nagu daawato waliba noo soo gacangelinayseene bal idinku isxoreeya إذا وحن وحوري نويا أديكوا رهر الجيسة أو صحفية أيام حرحين وسير كأريمها جودها سو ما لا لفت جيسة أي بريت الفون قصدر أيام هدو كوسو دل ويانا حفيز كله الجيسة بيول ويرنيا إذا كنا شحرية وحيد بها تاجا نكاس نوها يا أنا جالس كأنه دبعت النجداية وفرنتها وورعد runtii waa warcad dabcan waa wax laga xumaado in dad
ومضى كله حسوق خاصة قال sidoo kalena qayb bulshada reer Soomaaliland xataa kamid ah oo xasuuqay jaamaca dubad oo marar badan halkan ka hadalay in qayb ka badan bulshada Soomaaliland runtii ilaa maanta guriyihii laga guumeysay muuqdaan inay caawa in Hargeysa ka baad ka dhiganayaan waa wax muuqda runtii inay soo hadaynu gabagabada barnaamijkeena in Idris uu ku soo dhawaano isbedeladana socda waxyaabo badan baa rajooyinku isbedelayaan maxaad rajaynaysaa in dhibaatooyin fara badan iyo waqtiyo fara badan ayaa runtii deegaanka soo maray laakiin haddana waxaa muuqda faraj in waxaa deegaanka dhawaan laga soo saaray in khayraad dabiiciya oo kaydsanaa inkastoo in ay ku faanaysay maamulka hadda sii taliya waxaa se muuqda isbedelo waaweyn in uu ra-iisul wasaare uu sheegayna wixii khayraada deegaanka yaalla waxa uu sheegay in si xor ah iyadoo ummadda loogu cadaalad sameynaya loo qaybsan doono markiinu wararka runtii murugada faraha badan le ka tagno u soo noqono mustaqbalka maxaa rajaynaysaan mustaqbalka niyo dadka deegaanka iyo Soomaali meel kasta ku nooshahay horta guul iyo balaade iyo barwaaqo aanu rajaynayna dadka Soomaalida waxay ahaan jireen dad han leh ay dadka Soomaalida ahaan jireen ilaahay waxa ka baryaa hankii Soomaalinimadu inuu soo noqdo maanta shan Soomaaliyeed oo isku biirayso oo ay muuqataa ma jirto waxa weeyaan dadka waa la kala dilay bal laba kala maqnaadeen laakiin walaalo is og oo iska warhaya oo isku cadow ah oo ka Soomaalida kale uu la cadow yahay horta noqono waa fariin aan Soomaalida u diray balaad inuu rajaynaya dhanka deegaanka waxaan rajaynaynaa ifafaalo iyo daruur barwaaqo oo rajo oo nabadeed inay dadkayga iyo deegaankayga ku roganayso ayaa noo muuqata waxaan noo muuqata in dadkayagu 10 sanadood oo dulmi kala sarreyn tacaddi dhib kufsi dhac uu naga soo gabagabeeyay noo muuqata waxa arinta shidaalka ka dhawaatay shidaalka annaga leh dadka Soomaaliyeed ee deegaanka degan ayaa iska leh reer malaha gobol gaari malaha qabiil gaari malaha waxa la dadka Soomaaliyeed ee xayndaabka dawlad deegaanka xuduudkiisa gudaha ugu jira abdiilay waqti ma haysto taageerada shacabka ma haysto waana waqtigiisa dhamaaday waxa go'aan ka gaari karta oo jaangoyn karta dadka deegaanku mas'uul ay soo doorteen oo ku jooga rabitaanka shacabka ku jooga ay go'aan ka gaari karaan imma kala ima muuqato kulay iska xogo hoose jira in iska arrimo siyaasadeed way waxaan furka looga furay waqtigeedana waxa jaangoyn doona waqtiga iyo dadka dawlad deegaanka ilaahay sukadi biidnillah aad yaad mahadsantahay Idris Axmed Cabdi runtii isbedel doonka dawlad deegaanka Soomaalida kamid ah Soomaaliland khabiir muddo fara badan guud ahaan iyo gaar ahaan buu la socday isbedelada Itoobiya ka dhacaya waxa barnaamijkan caawayo martinoogaha toddobaadada soo socda ayuu isbedelada Itoobiya si dhow la socon doona Cabdicasina barnaamijka kale oo aan Idrisna barnaamijka kale kala duwan ayuu martinoogu noqon doona aad iyo aad ayaan daawadayaal idinka hadnaqaya waqtiga nala qaadateen iyo barnaamijka ka qayb galiseen adigana sidoo kale aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa Idris oo fursadda iyo waqtiga dacwana siisay inta aad iyo aad u mahadsantahay insha Allah ta'ala ido aad baad mahadsantahay wariye adigana waxa ku rajeynaa insha Allah ta'ala xafiiskaaga Hargeysa kulli dambi baan soo jeeday baan malaynayaa iyo adigaba in aad kuna nabad gashaan baan rajeynaa insha Allah ta'ala fariinteeda ugu dambeysay waxa weeyaan Hargeysi iyana jigjigoobin aad iyo aad baad mahadsantahay xor baan hayna xormaasan ku hadlaynaa insha Allah waxaan sugaynaa majro aad iyo aad mahadsantahay mar labaad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته